hadafkaygu ma ahan amniga iyo siyaasadda, balse waxaa diiradda ku saari doonaa dhaqaalaha iyo horumarka dhinacyada badan leh. Waa xaafad ku taala inta u dhexeysa xarunta ciidamada asluubta iyo Treedisho ee wadada ka baxda Muqdisho ee aada degmada Afgooye. Marka aad fiiriso dhismaha quruxda badan iyo dabaqyada dhaadheer ee ay ku yaalaan, waxaa durba qalbigaaga ku soo dhici doona horumar la taaban karo oo la soo waday sanado badan. Balse arrintu sidaas ma ahan. Waxaan la sheekaystay Xudiin Khalfaan Usmaan oo muddo badan deganaa deegaankan Tabeelaha. Bilowgii deegaankan la imaanayay ilaa hadda degan, wuxuuna yiri sida tan: dignay aydoon Tabeele baan ahaynano meel oo jaageed iyo busteeda kacayso aydoo ah ayaan soo degnay maantana. Maalintan soo deganay iyo maanta waa laba aan isku soo dhaweynay. Marka maalinkan soo deganay suuq ma lahayn, goob caafimaad ma lahayn, biyaheeda cadiibiyuu ahaa, meel lagu ganacsada ma lahayn, ganacsi fiican ma lahayn. Laakiin hadda maanta waxaynu taagannahay Sokonto Bakaaro xataa Sokonto ma dhihi karay. Bakaaro hadda muddo 4 sano 3 sano adeeg umaanan doonin. Adeegaygu waxaan ka adeegtaa Tabeelaha. dambeeyay 2014 ayaa horumarkeeda aad u bilowday, waxayna leedahay suuqa weyn ee Tabeelaha Ceel Biyoodyo. Waxaa ku taala xarunta loogu arrimiyo degmada Garis Valley. Waxaa ku taala warshada biyaha Samsam, goobo waxbarasho, iyo waxay leedahay goobo lagu dalxiiso, isbitaallo ilaa 4 gaaraya, MCH ilaa 3 gaaraya oo free ah. Waxaa degan bulshada qaybaheeda kala duwan. Si kale haddaan u dhigo, Soomaali inta qabiil ay tahay oo dhan ayaa degan. Bulshada degan waxaa u badan dad danyar ah iyo qoysas sabool ah oo xamaalata. Warbixintayda taas ayaan rabaa inaan ku soo koobo. Commentiga noogu reeb fikirkaaga iyo wixii aad jeclaan lahayd in lagu soo kordhiyo barnaamijkan taxanaha ah.